Somaliland inuu ka dhaco isbedel heer waxaan soo maray iyadoo oo aan suurtagal ahayn in halkan imaadayna intaan ini u kaliya adeegay saf dheer galay kaarkii codka soo qaatay bal inaan codayaan isbedelka qayb ka noqdo insha Allah rajeenayaan Allah ma igu simo maalintan codkayga dhiibanayo oo aynu kaynu u aragno inuu ku haboon yahay imikana aynu garanaynaa aynu insha Allah ta'ala aynu saari doono cid maan dilin cid maan dhifin dambi maan gelin dambiile maan ahayn waxaan sameeyay ma jirin kaliya waxay afkaartayda iyo fikirkayga dastuurku damaanad qaadiyo xorriyadeedan xaq u leeyahay oo nin gaar si gaar ah u qancin dambiilena kuma noqon kartid qofka hadda la fikir noqon weydo ka fikir duwanaato waxaan u mahadcelinayaa dhammaan mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha iyo madaxda sare ururka weyn ka ama xisbiga kaahba waxaan hadda ugu weynaan qolinaya ilaahay ka soo gudoomiyaha Maxamed Xaasha Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdilaahi Deere waxa halkan ku sugan rag iyaguna qiimo badan xildhibaanadii golaha wakiilada oo dadaal dheer iyaguna ka galay ka soo horjeesiga dulmigii xarigayga dulmiga ahaa waxa jooga asxaab kale oo fara badan iyo mas'uuliyiin sarsare oo ururweynaha ka ahaa garyaqaanadeedii ayaa halkan fadhiya raggaas runtii waa wada mujaahidiin waxaan leeyahay lixlayaal oo subaatiina ma sha Allah hadba maasantii wax badan ayaa kiiskayga iska bedelaan lahaa haddii aan garyaqaan caraale iyo mubarak falaagi gulad dafac aanay garabkayga ahayn waan idin mahadcelinayaa waxaan mahadcelinayaa cid walba oo dulmiga diiday tacadiga diiday ka soo horjeestay isu awood sheegasho iyo caburin iyo tacadin Somaliland gudaheeda ka dhaco cid kasta oo cadaalad darro tiri maya caburin tiri maya wax kasta oo sharcigeenu aanu ogolayna si cad u diiday iskay garab taagtay garbahaygan ku duulay madaxaydan qodbadii ahayd maalintaan codka lahayn waa mahadsantii saxaafadda si gaar ah baan idin ku mahadcelinayaa anigu horta 5 sano u dambeysay wadanka anigoo sidaan maanta idin hor taaganahay maanimanin oo xorriyadaas haysta sabab kalena dhuumasho wadankayga ugu maalimanaynin ama maan diidaynin meelaha qaar inaan tago ama waxyaabo fara badan iigama hor taagnayn wax fara badan cid maan dilin cid maan dhifin dambi maan gelin dambiile maan ahayn waxaan sameeyay ma jirin kaliya waxay afkaartayda iyo fikirkayga dastuurku damaanad qaadiyo xorriyadeedan xaq u leeyahay oo nin gaar si gaar ah u qancin dambiilena kuma noqon kartid qofka hadda la fikir noqon weydo ka fikir duwanaato imika waxaan leeyahay marnaba Somaliland gudaheeda ma aqbalayna inay suurtagal ka noqoto inay dhaqan waxaan sharcigu ogolayn qabtay xira iyo xukuma iyo haya halkan insha Allah ta'ala kama dhacayso mana yeelayno waxaan sharciga ka baxsan oo aanu sharcigiina ogolayn dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin waxaan markasta xasuusanahay oo anigu xabsiga inaan galay oo ka soo baxay waa aragnimo kala soo baxay mooyaane wax kale runtii oo saameynaygu mu yeelan saameynta si aan kala soo baxay waxa weeyaan kuwii aan anigu meesha kaga yimid xabsiga waxaan kaga yimid dad badan cod lahayn dad badan oo siyaabo kala duwan ku xiran dad badan oo runtii aad habeenkii ku soo saleelayso xaaladahoodii marka dib u xasuusato kuwaasaan doonayaa inaan wax badan insha Allah intii awoodida karaankayga aan ka qabto kuwaasaan doonayaa in aad idinkuna garab igula noqotaan ka shaqeyno in badan oo xaq u lahayn inay xibnaadaan oo wax fudud ku xiran ama siyaabo khaldan ay wax isaga daba mareen baan doonayaa inay intii karaankeena aynu qodan noqonayno caawino mar labaad baan mahadcelinayaa garyaqaankayga dhammaan garyaqaanadayda Somaliland inuu ka dhaco isbedel heer waxaan soo maray iyadoo oo aan suurtagal ahayn in halkan imaadayna intaan ini u kaliya adeegay saf dheer galay kaarkii codka soo qaatay bal inaan codayaan isbedelka qayb ka noqdo insha Allah rajeenayaan Allah ma igu simo maalintan codkayga dhiibanayo oo aynu kaynu u aragno inuu ku haboon yahay imikana aynu garanaynaa aynu insha Allah ta'ala aynu saari doono